halkani idiin muuqata waa goob ay ku nool yihiin shimbiro kuwa duula iyo kuwa aan duuli karin ee biyaha dhex jiifa. haddaba ujeeddada aan ka leeyahay maxay tahay ila soco. shimbiraha goobtani ku nool ee aad u jeedaan waxaa ku quudiya dadka dariska la ah iyo kuwa kale oo xaafado fogfog ugu yimaada si ay u quudiyaan. dadkaasi waxay isugu jiraan dadka u dhashay waddankani Norway oo hawshani muddo fog soo waday iyo dadka soo galootiga ku ah ee aan u dhalanin balse degan. waxaana ka mid ah Soomaali ku nool magaalada Bergen oo ah caasimadda labaad ee dalka Norway. waxayna la qabsadeen quudinta shimbiraha oo maalinna aysan ka hilmaamin in ay quudiyaan. sidee loo quudiyaa maxaase lagu quudiyaa ayaan weydiiyey Nuuraddiin Sheekh Birkaan. aniga xaafadan aan deganahay meeshan waa arkaysaa balligan biyaha ah beer cagaareedan dadku ku tareen ama ku tamashaleeyaan lagu ordo shimbiraha joogo qof kasta marka xaafadda ka mid ah shimbirahan inta joogo oo ayuu cunto u soo qaadaa cuntada oo guriga ku soo harto inta la daadin lahaa maadaama ayna joogin dad masaakiin oo la siiyo xaafadda oo dhan cuntada waa loo keenaa cunto caadi ahoo dukaamada uga soo gadnana way jirtaa. Nuuraddiin wuxuu waayo joog u soo noqday muddadii burburka ahayd ee uu ku noolaa Soomaaliya nolol saldhiggeedu ahaa kala ridasho isla markaana xayawaanka iyo dadkuna aysan heshiis ahayn balse halkan uu ku arkay bulsho isweheshanaysa isu dhoola cadaynaysa xitaa iyagoo aan qaarkood wax aqoon ah isu lahayn iyo xayawaanaadka oo xuquuq leh lana daweeyo. noloshii ahayd dhacsiga dadka bani aadamka kala ridasho meel ahaan ka nimid nolosha in waxay u ekeed kala ridasho shimbirna iska badhaaf ama xayawaanka iyo dadka heshiis ma ahayn marka aan joogno dhulka Afrika oo dhan ama Aasiya barkeed marka alxaasil meeshan waa meel dadkuna isu naxariisto isweheshado xayawaankana xitaa xuquuq u leeyahay la nooleeyo la daaweeyo marka shimbirtan waxay ka mid tahay shimbirtan waddankan qabow way xilliga kulaylaha ay cagaarka doog badan way imaadaa marka kalena way baxdaa marka cala kulli xal shimbirta oo xayawaanka kulli nool xariisto la quudiyo iyo laba bani aadan oo iska hor timidoo is aqoonin isu dhoola cadayn dhulkan aan ku barannay al-ibtisaama markii hore waan soo barannay laakiin ma aqaan samayntii waa naga maqneed waxaan beri hore buugaagta ka akhrin jirnay al-ibtisaama laa tusaawi shay walaakin taftax quluub annaas beri horaan bartay inaad dhoola cadayso waxay dekostarigan waxay la qiimo tahay malaha taana ma aha taana ma dhiganto haddana qalbiga dadkay furtaa dadku waxaan is aqoonoo dhan weji cabuus isku maraayey meeshan ma aha waxaan ku barannay qofaan ku aqoon kuu dhoola caddaynayo dumar leh rag leh wax ugu jeeda lahayn isweheshi uun bashar waaye waa iska hor timaadeen si farxad buu ku gelinaa adna farxadaa gelinaya weji farfuran. sidoo kale quudista shimbiraha waxaa kala qayb qaata carruurtiisa si ay ugu daysadaan naxariista iyo wanaagga uu samaynayo si berri iyaguna ay u joogteeyaan. berigan imid waxaan arkay adigu xaafadan gaar ahaan markaan soo degnay landosa lahaa dadkii oo imaanayaan oo hakada ku tamashleeyaan ku ordaan meel la fariistay leedahay marka dadkii ayaan arkay iyo shimbiro joogo lagu quudinayo anna arrin maha fiican waxay ka mid tahay waan kala qayb qaatay aniga keligii ma sameeyo marar badan waa keenaa carruurtayda xitaa way timaadaa sidaas oo kale rootigii way gurigii cuntay ka soo qaadaan shimbirtu way u daadiyaan dadku waxyaabaha fiican aan ka barannay dhulkan ay ka mid tahay hadda si aniga keligii ma ihi deriska shimbirahan allah unbaa u maqan marka deriskan oo dhan aan cuntada u keeno meesha lagu quudiyo ayagana way barteen hadda gabadhaas waxaan u malaynaa oo xagga ka muuqato ayada lafteedu canugeeday wadaa
rootiya shimbirtii u daadinayaan iyo waxyaabo yaryar oo kale oo sida galley iyo qamadi ah marka carruurta xitaa waxaa la barbaarinaa in uu u naxariisto shimbirta xayawaanka kale bisadda eyga kul qof wax in la tuuriyeeyo iska dhaafa waa la sii quudinaa saasaa la yeelaa dawadooda xitaa waa laga warqabaa marka waxyaabaha fiican waddankan aan ka barannay ayayba ka mid tahay gaar ahaan magaaladeeda Bergen aan degnaa wax badan naxariistu waa dareen iyo dabci hoogiisu yahay bartamaha qulubta dadka naxariista naxariistana lama iibsado oo maaha alaab aad ka soo heli karto dukaamada lama rahmo la iskumana hadiyadeeyo hase yeeshee waa dareen uu ilaahay ku abuuro qalbiga qofka uu doono inaad ka dhowrsato dhibaataynta xayawaanka taa beddelkeedana aad quudiso oo waraabisaa waa raxmad bile maxamed cabdi SDN TV Bergen Norway